السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدة الصومالية دوا سلامية داهر أو بيشا أو لها النهي متلية وسلامية نقول كديجل أو نور حاليا أينا سيجارة وسلامية هرت دتك الصومالية دد ولا الأوية قرني ما كده حسا كبعد القبيلة كلا نقدان أنجا حدان دارود نهي دتك الصومالية كم النهي دتك أقول تنكوين ترى أهان يتي أهاننا لمبركوبان دتك ونهي wax iska qoran waaye wax iska cadaana waaye caawa dooda waxaan usoo fuulay oo halka aan usoo joogaa daahir oo aan arkay dhowr jeer isagoo dad dhalinyara oo taariikh badan aan hayn taariikha khaldan u dhiibaya waxaan rabaa marka sida xaqiiqda ah anoo aan waxba ku darin waxna ka dhimin inaan halka ka sheego daarood waxa weeye jamhuuriyaddii soomaaliya dhulka soomaalidu degto markii isticmaalku yimi shan baa loo qaybiyey soomaali galbeed dhulka ogaadeenaya la dhahaa ogaadeenaya ingiriis baa u bixiyey ogaadeenaya la dhahaa gadaal baa soomaali galbeed uga bixiyey ingiriis wuxuu ugu bixiyey ogaadeenaya dadka halkaa degan majoritygooda 95% baa ogaadeenahaa haddii cidi soo raacdana daarood kale oo cid kasta leh iyo soomaali kale baa ku weriya laakiin majority saasay magaca ku qaateen jamhuuriyadda soomaaliya laba gobol bay ahayd labada gobol daaroodku waqooyi iyo koonfur labadaba waa degaa majorityna waa ka yihiin hadday koonfur tahay iyo hadday waqooyi tahayba jabuuti sidaasi lamida dad badanaa ka dega canfarta laftigeeda annagu hadda kuwa tirada ku buuxsan mayno iyagaa maaragtay qaarkood xataa daarooda gobolka NFD sidaasi lamida daarooda majority ka ah 99 baan ba oran karnaa oo ogaadeen ba iyagana u badan daarood marka tiradaas uu leeyahay tayana waa dadkaan garanayno dad taariikhdooda caddahay weeye dad la isu keenay maaha aniga qofka daaroodka ah haddaan magacaygu afraad u sheego reer aala haashim buu igaasiyaa beeshaasi waxay ka soo jeedaa oo ku abtisataa sheekh cabdiraxmaan bin ismaaciil aala jabardi oo isaguna ku abtirsada oo ka soo jeeda caqiil ibnu abi taalib oo reer binu haashim halkaa ka gala taariikhdu waddanka yimi waa qoran tahay ibnu batuuta qoray taariikhyana boortiisa qoray masxafyada adduunyada taala markuu Soomaalidu halka ugu yimi risaalu siday waa soo gaarsiiyay si fiican u soo dhaweeyeen ma sha Allah meeshu ku dhintayna Highland baa la dhahaa halkaas ku dugan yahay gabadhii ugu horeysay u guursadayna gabar dira oo aan sharaf hayno oo doombira dir ayadayo la oran jiray baa ahayd intii ka dambeysay saas ku faracmay dadka tirada leh ee buu noqday qabiilkaasina Soomaali waa qabiil influence ku leh tusaale yar markaan soo qaado Soomaaliya waxay xornimada haysatay 1960kii xilligii dawladdu jirtay ilaa 91dii markaan eegno kale waxay ahayd 31 sano 22 sano oo Janaan Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay waddanka haystay iyo 2 sano oo uu haystay Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake 23 sano daarood baa waddanka ka talinayay intii burburkana hadda u dameyso farmaajo jooga dadkaasi waxay caan ku yihiin oo ku soo caanamaaleen markay xukunka hayaan inaysan dawladnimada ka shaqayn qadiyad ku shaqeeyaan qarannimo iyo qab soo celiyaan tusaale waxa idinku filan farmaajo hadda jooga qabkii Soomaaliyeed buu soo celiyay lama arkin isagoo bahdil la qaadanaya wuxuu yiri gunnimo dhereglo waxaan ka doorbiday gobonnimo gaajale 8 milyan lacag 9 milyan oo waddanka si sharci darro ah ku soo gashay imaaraad baa lahaa waa qabtay 5 sano haya hadda rooble oo nin kale ilma adeer yihiin oo ra'iisul wasaare ah farmaajo wuxuu ka hayaa 9 milyan baahi baa u geynaysa dawladnimo u geynaysa hal bixiyo la leeyahay maxkamadii baa diidan imaaraad buu isku shubay imaaraad hadda abdo wax kale uma joogo 9 milyan in loo safaxo farmaajo haddii madaxweyne kale oo beelaha kale ah khaasatan xasan sheekh oo kale ama madaxweynayaasha wi aha waa hore ku kala hayd waana wax qoran governorka bankiga Yusr Abraar oo xasan sheekh u ahayd lafaheeda la carabay 9 cisho markay joogtay oo gabar Soomaaliyeed ahayd waxay u carabay waxay tiri madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu khasnada dawladda waxa ku jira iska qaato sariirta hoostiisa gashado farmaajo laakiinse nidaam maxaa ku rahaa waddanka u dhisay maaliyadeed oo hagaagsan taariikhda daarood uu leeyahay oo ku caanbaxay bay ku jirtaa daarood inuu dad tayo leh oo tiro leeyahay waxa idin cadeynaysa daahir isagoo hawiye daarood kuma aado irir Soomaalidu samaystay
oo horay maxaa ku idhahdaa cigaal iyo ay u sameeyaan allah u naxariistee markay siyaasaddii daarood lagu qaban waayey si qabiilada kale ee soomaaliyeed isu taxaalufaystaan daahir halakan giftiga markuu ka doonayo yaa irir samaalay buu dhahaa sababtoo ah reerkiisa kuma kalsoona sababtoo ah wuxuu og yahay inaysan daarood ku aadi karin tira ahaan iyo tay ahaanba sidoo kale wuxuu intaa kuma hara ee wuxuu ku dadaalaa inuu daarood kala guro oo kala jijabiyo waxaa arkaysaa isagoo mareexaan caayaya majeerteen caayaya dhulbahante iyo ogaadeen ama qabiilo kaloo daaroodana ammaanaya aniga hawiyu ii yahay meeshaan hawiye ku ammaanana iyagoo dhan baa ku ammaanay habar gidir iyo abgaal lama kala jecli dad hawiye weeye hadday fiican yihiinna iyaga isu fiican hadday isu xun yihiin iyaga isu xun annaga dad soomaaliyeed noo yihiin laakiin isagu wuxuu u kala qaadqaadaa oo u kala jijabiyaa wax kale maaha in lafa marooda iyagaa la isku jabiyaa annagu laakiin reer soomaaliyeed aan u aragnaa hadday midaysan yihiinna inaysan na soo gaari karin hadday kala qaybsan yihiinna hadda warkeeda badaa taas baa tusaale kugu filan waa dadka uu daahir u babac dhigi kari waaye ee uu soomaalida kale usoo kaxaysto anoo raxaweyn soo kaxaysanaya lama arko anoo dirle reer ayahay baa tiina ii kaalaya lama arko sidoo kale daaroodku waa dad dhaqan leh odayaal isma abay leeyihiin boqorree leeyihiin garaadee leeyihiin ugaasye leeyihiin waa waxay ku soo caanamaaleen iyagoo islaynaya lama arko laba reeroo daarood hadday maanta diriraan ismaa ku baxa mareexaan laba jirigoo ka mid hadday isdiriraan daarood kalaa ku baxa ogaadeen ama maxaa ku dhexdiisa hadduu isdiriro daarood kalaa ku baxa taasi waxay dhaxsiisay markii burburka uu dhacay in daaroodka uu kala nabad galo halka hawiye isku baaba'ay daahir wuxuu sheegaa dhibaatooyin yaryara oo daarood dhexdii kala gaara laakiin daahir hawiye inta kala gaartay abgaal iyo habargidir afar biloodkii cagabararkii malaayiinta boqolaalka kun oo qof lagu kala dilay ma sheegi karo waxaana keenaya waxay ahayd halkaa gaarsiiyey odayaal mare aniga ninka daaroodka markuu arko shiina suldaan buu iga horreysiiyaa aniga maxaa ku idhahdaa ninka mareexaan markaan arko ugaas baan uga horreysiiyaa dhaqankayagaasaa ah kan majeerteen boqor baa uga horreysiiyaa kan maxaa ku idhahdayay ogaadeen 10 isimey oo magacyo kale leeyihiin daaroodku dad taariikhda la weeye waxaan arkay daahir isagoo leh laba caasimadood baa maaragtay degnaa soomaaliya jamhuuriyaddu 18 gobol baa ahayd 10 daarood baa degan iyagaa iskale iyagaa majoritka ah waa lagu weheliyaa waa lagu wehelin karaa waa lala degi karaa marka daarood dadka taariikhda la weeye waa dadkii maxaa ku idhahdayay ingiriis la diriray waa dadka sayid maxaa cabdulla xasan ka dhashay waa dadkii boqortooyada ingiriisku markay wax kale ka qaban weydey oo maxaa ku idhahdaa si kasta dhulka ugu jabin weydey diyaaradaha ku duqaysay taariikhdaas soomaaliya oo dhan baa le daahir waa loo soo dhigay taariikhdaas soomaali ka leenahay male laakiin waxaa la yidhi haddii lagu sheelo waa la is sheegaa haddii daahir uuna sheelay waa sheegaynaa dadkaan u sheegaynaa axmed gurey baa ka mida haddaa maqasheen soomaali baa la cunsiiyey waxaan wadaa xabashi soomaali baa xilibka qayrin bartay axmed gurey nin mareexaana buu ahaa nin daarooda buu ahaa maxaa ku idhahdayay waa ninkii futuuxu xabash keena weeye siyaad barre isagu nabar buu ku yahay 21 sano ninkii waddanka ka talinaya weeye dowladnimo ka horreysana ma jirin waddanku corruption buu ahaan jiray mid ka dambaysaana ma jirin waxa weeye daahir maca alasaf maxaa ku idhahdayay hadda taariikhda hadduu 91 ka soo bilaabo jiingado guryo lagala dego iyo xafiisyaal bila la qaystay bay noqonaysaa laakiin 91 wixii ka horreeyay dowladnimada warshado la dhisay wadooyin la dhisay hanuunin la sameeyey adduunka lala tartamayey quruxda iyo qaayaha buu maxaa ku idhahdayay waddanku lahaa intii dambe oo burburka ana daahir siyaasiyiinta soomaalida khaasatan isaaq faysal cali waraabe u jecel yahay faysal cali waraabe maalintuu rabo inuu hawiye la hadlo wuxuu dhahaa hal tuulo aan leedihiin maamul waa ka samayn weydeen waxa weeye habar gidir oo keliya baa galmudug ku heshiin weyday 10 madaxweyne 3 maamul goboleed kala soo haystay laakiin daaroodku labadooda maamulba waa laba maamul oo horumaray dhibi kama taagna shida kama taagna waa laba maamul oo dhaqaale ahaan isku filan si kasta isugula filan taasina waxay keentaa inay mar walba dowladnimada laba daqiiqo ay harmiyaa si fiican laba daqiiqo labadooda maamul goboleed oo strong ah weeye iyagoo hadda nin daarooda uu madaxweyne yahay bay ka hor imanayaan oo go'aamada masiiriga ee maamul goboleedyadooda ku shaqaystaan hadduu nin hawiyaasha la joogay sidaas la mid ah laakiin labada maamul goboleed oo hawiye daahir waa og yahay laba maamul goboleed oo iskoodu istaagi kara maaha mar walba fila Soomaaliya bay ku khasban yihiin halkaas maxaa ku idhahdaa xataa qofka jooga markaa waa qof filada laga soo xawilo buu noqdaa xasana soo xawilay farmaajo had soo xawilay waa wax iska cadaan weeye
qoorqoor tiisa kama hadli karo tiisa kuma hadli karo laakiin dani iyadoo farmaajo uu nin daarooda iyo hofilada joogo wixii uu danta Puntland u arko inuu yiraahdo ka kac koobta waxba maxaa ku yiraahdo uma jirto Axmed Madoobe sidaas la mid ah marka waxay ku muujinaysaa maamul goboleedyo strong inay yihiin halka Hirshabeelle ay tahay maamul de iska ku faakacaya gacan ku rimisa dhawaal la sameeyay weli aan dhaqaaqin inaa maaragtay ku digto mar rabo insha Allah taala guusha waa u rajeynaya halka Puntland marayso halka Jubbaland marayso yoomina ayam inay gaaraan marka daarood dadka taariikhda la weeye 18 milyan kore u dhaafeen Soomaali galbeed oo ogtihiin oo masaaxada dhulka Soomaalida jamhuuriyadda Soomaaliya la eg daarooda tiga iyaga majority ka ogaadeen yar dhaha sidoo kale bulshada ku nool waa 12 milyan ogaadeen u badan yihiin 95% waa ka baxay walaalkay ha ku soo dhawaado hadda intaas casho u filan ما شاء الله نني لا يحبري سفيعنا أو هذا الشيء أريد كواد ضد صوت ماذا نبع أهان شينا وحقوتها سان وجيدو شن إلا واتن نبع كي شن إلا واتن كوني سوتها داير على سون وحوتها لح إيتون نبع تضوى كي أو كونيس داير دانك كونيس كمركي لو إيغو أريد كواد وعلاقا أتكاذي dhanka hadalka marka loo eegana bal adigana meegaada qabso 10 daqiiqo waa yahay kooniska laga ma adkaano anigu ma hadlin wali marka horta fiire waxaan maleeyahay inaan dadka Soomaaliyeed anaga waxaan xisaabinaynaa intuu shiina aamusan yahay inta hadlaysid wixii koonis soo dhacaan xisaabinaynaa waaya horta shiine waxaan leeyahay waxaan lahayn anagu waxaan ka hadlaynay dal iyo dad Soomaaliyeed oo xora anus Malaysia wuxuu ku galgala doonaa caawa Ethiopia iyo Kenya Soomaalida ku nool oo la gumaysta laakiin waxaan u sheegayaa hadduu saa uga hadlayaba Soomaali galbeed dhulka ugu badan waxa degan waxa weeye dir iyo hawiye weeye dadka degan hadduu si aqoon magaalooyinkan xabad dul maraya oo u tirinaya inta magaalo ay degan yihiin xilalka ay ka soo qabteen ninkii ugu horeeyay ee madaxweyne ka noqon Soomaali galbeed baan u sheegayaa taasaan ka leeyahay haddii laga hadlayo Kenyana Muroole iyo Dagoodiyo iyo Ajuuraan inta ay ka degan yihiin iyo Sheeqaal ayaa aniga iga badan oo igu filan marka dhul aniga hadda Ethiopia iyo Kenya ay gumaysanayso xisaabsan maye waxaan xisaabsanayaa dhulka madaxa bannaan dadka Soomaaliyeed ayaan xisaabsanayaa anigu waxaan xisaabsanayaa jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan xisaabsanayaa jamhuuriyadda Somaliland waxaan xisaabsanayaa jamhuuriyadda Djibouti waxaan aad ugu faraxsanahay saddexdaas jamhuuriyadood iyo saddexda caasimadoodba inay ahaayeen mataqaa inay yihiin jamhuuriyado mataqaanaa caasimadahoodu ay irir Soomaali leeyihiin caasimada dalka Soomaaliyeed ee la yiraahdo Muqdisho waa caasimad hawiye caasimada labaad ee dalka ahayd xilligii hore hada Somaliland bay caasimad oo jamhuuriyad ah laakiin markii hore waxay ahayd magaalada labaad ama caasimada labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya Hargeysa oo ah magaalo Isaaq caasimada saddexaad waxay ahayd Ilaahay kuma sameeyay Burco oo ah magaalo Isaaq saddexdaasba shiino haddaan la isindhatirayn waxay muujinaysaa dadkan ku abtirsanaysa ee daaroodku inay minority ay ka yihiin dhulka madaxa bannaan ee ummadda Soomaaliyeed inay ka yihiin doodeenu taasi ku saabsanta laakiin waxaan rabaa inaan cashar ku dhigo casharka waxay taqaaniin dabeecada ah inaan sheegataan Axmed Gurey oo kale oo ahaa nin dir ah inaad tirahdaan wuxuu ahaa Axmed Gurey mataqaanaa wuxuu ahaa Axmed Gurey daarodo ahaa taasina ninka uu ahaa buugga oo Fusuuxul Xabash leeyahay ku qoran yahay taariikhdiisa iyo qabiilkiisana halkaas dadka fiiri karaan ninkaas nin dir oo ahaa waxaan ku barayaa cashar baan ku dhigayaa waxaan kaaga soo bilaabayaa xorriyaddii baan kaaga soo bilaabayaa ninkii ergeyga gaarka ahaa ee Soomaaliya ka socday ee qaramada midoobay tagay ee gobonnimada iyo qarnimada ummadda Soomaaliyeed ku faanaysa Cabdullaahi Ciise Maxamuud buu ahaa nin hawiyaha habar gidira oo sacada oo reer nimcaalaha oo aniga ugu weey ah buu ahaa ma ahayn nin daarooda ma ahayn ninkii xorriyadda keena buu ahaa markii la tagay ee qarnimada la soo qaadayna labada nin Soomaaliya ka kala socday waqooyi iyo koonfur waxay ahaayeen
hawiye iyo isaaq bay ahaayeen oo dir matelayay oo dir waqooyi matelayay ragga heshiiska soo qaada buu ahaa waxaan ku dhigayaa 10 inaan dawladnimadu meel ka soo gin Soomaaliya ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee mataqaan Soomaaliya ay yeelatay dawladii ku meel gaarka ahayd Cabdullaahi Ciise Maxamuud buu ahaa nin hawiye ah oo habar gido sacad u ahaa waxa weeye kaasad adigu mataqaanaa ina Muuse Boqor u ahaa oo wasiir arrimo gudo ahaa nin daarood ah waatii la yiri gaacsa waxa laga wadaa gofeerna sacad dawladan oo dacaydaasi aad soo gelisay suuqa idinko dacayd ku nool ah waxa weeye Cabdullaahi Ciise Maxamuud wuxuu sameeyay dimuqraadiyada ayuu dalka ka hirgeliyay ninkaas sacad ee hawiye doorasho ayuu dalka Soomaaliya ka hirgeliyay taariikhdaasi waa taariikh weyn waxay noqonaa Afrika dalkii ugu horeeyay ee dimuqraadiyad yeeshay waxaan kale kugu darayaa calanka buluuga ah meeshii ugu horeysay ee laga taagay ma ahayn magaalo daarood magaalo isaaqay ee Hargeysa ahayd meeshii labaad ee laga taagana Muqdisho ahayd ma aha magaalo daarood ee waa caasimadda dalka hawiye leeyihiin hadad Muqdisho ugu haystana waa ka sheekay doontaa waxa weeye Cabdullaahi Ciise dalka waxa doorasho laga qabanayaa la yiri intay u galeen suuqa rag daarooda waxa la yiri Cabdullaahi Ciise maadaama uu yahay nin wadani ah oo gobonimo u dirar oo hogaamiya oo tacliin leh oo aqoon leh ayaa waxa la yiri sida darteed ayaa waxa la yiri dacdaha lagu reebo ma u dagaalamin isagoo laandheera ah ayuu dalka doorashaha laga qabto jaala daarood shiino hadda daarood hadlayso madaxweynihii ugu horeeyay ee ummadda Soomaaliyeed ay yeelatay ama jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu ahaa aadan Cabdulle Cismaan aadan cabdow ahaa taasi waxay kaaga marqaati kacaysaa in daaroodku aysan caasimadna yeelan madaxweyne yeelan qofka tacliinta leh ee ahlu cilmiga ah wuxuu qiimeyn karaa in madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed uu yahay hawiye oo ah aadan Cabdulle Cismaan in caasimadii ummadda Soomaaliyeed ay tahay Muqdisho oo ah magaalo hawiye ay isku haystaan madaxweyne iyo caasimad taasi waxa weeye waxay ku baraysaa tacliin waxay ku baraysaa ra'iisul wasaarihii ummadda Soomaaliyeed inuu ahaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo ah nin reer Sheekh oo dira oo Soomaaliya ah caasimadii labaadna ay ahayd magaaladii uu ka yimid ee Hargeysa isagoo lagu gabiyay Ciise Muuse mooyee haday ciidan noolaato nabadda ceelkan ku riday ka soo saarto gabayada isagoo leh ayuu ka yimid caasimadii Hargeysa nin reer Sheekh uu yahay taas waxay cadeynaysaa halka aynu joogno markii waqooyi laga hadlayo adiga aad ka timid inay isaaq ku matelayeen oo rag Soomaaliya ah marka la joogo koonfurtana inay hawiye madaxweyne ku ahaayeen caasimadina ay hayeen wilna ay hayaan taariikhda ayaan 10 ku sii dhigayaa si aan ku baro taariikhdan sooyaalka ah waxa weeye beesha daarood waxay astaan iyo taariikh u leedahay wax la yiraahdo macangegnimo waxay taariikh u leedahay keligii tarisnimo waxay taariikh u leedahay xukun jacayl waxay taariikh u leedahay fan intaan anaga iskoraas kuma haysano tusaale waxa kaga soo qaadaya Cabdirashiid Cali Sharmaarki Ilaahay u naxariistay madaxweynimada Soomaaliya u tartamay aadan Cabdulle Cismaan oo doorashada ugu guuleystay daarood baa dilay Maxamed Siyaad Barre ayaa dilay afgembi buu sameeyay 20 sano waa adiga ku faanay dhahay 20 sano hay xukunkii 20 sano inuu qof kursiga kaliya tirsamo ku haysto oo hubkii qaranka iyo ciidankii qaranka dad ku laayo haday taariikh tahay adigan ku daynaya 20 sano waxa Siyaad Barre laga tuugayay Siyaad Barrow dalkaani uu naga dhaxeeyaa dastuur baa u qoran dimuqraadiyadda raac doorasho noo qabo walaalow aynu dad Soomaaliyeed nahay isu dhiibno doorashada uu diiday hubkii qaranka ciidankii qaranka dhaqaalihii qaranka ayuu qabiilo Soomaaliyeed ku dhameeyay 20 sano kadib Maxamed Siyaad Barre aad ku faantay waaya Maxamed Siyaad Barre aad ku faantay dalkii ayaa qori looga saaray xabad baa looga saaray ninka karkaaraha weydaariyay ee la kaacadii kibir qooqiisi beeniyay ee xuduudda Kenya ka talaabina hawiyo oo hajal maxaan faarax ciidid ma fahamtay waxaan ku qasabnay inuu qaxoonta ku dhinto waayahay kadib ragga hawiye yimid bar taariikhdooda fiiri ee Cabdiqaadir Salaah dimuqraadiyadda uu sameeyay u dhiibay Shariif Sheekh Axmed sidoo u dhiibay Xasan Maxamed soo u dhiibay farmaajo aad ku faanaysana sida kursiga loo kicin la yahay oo uu ceebaysan yahay ee muwaadin Soomaali u dhiibay Itoobiya ee dikadii dalka uu dhiib oo siinay Itoobiya ee Itoobiya u shaqeynaya taariikh dhigo marka inta ka soo hadalno waxaad fiirisaa
adigoo caawa nin daarooda ah sida lagu gumaysanayo ee aadan uga tirsanayn meelna ee lagu dhahayo maamul goboleed ma dhisi kartid nin daaroodana uu ku dhabar jibinayo waxaad fiirisaa hadalkii Faroole gunnimadiisii uu lahaa ogaadeenku waa Oromo af Soomaaliga baratay marka laga hadlayo taariikhaha igulama tartami kartid xorriyada dhaadheer baan leeyahay halgan dhaadheer baan leeyahay taliyihii ugu horreeyay ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Daawud buu ahaa 17 jeneraal ee dadka Soomaaliyeed ugu caansanna waa ku tirinayaa kulligood waa hawiye marka taariikhda dheer ayaan leeyahay dhulkaygana waxaan kaaga bilaabayaa ma taqaanaa ama su'aasha ugu dambaysay aan dhulku dhihin aan ku weydiinayo waxay tahay walaalow waxaad ii sheegtaa magaalada ay daarood leeyihiin ee ay ku nool yihiin 1 milyan oo qof waxaan ku sheegayaa caasimadda hawiyaale 4 milyan oo qof ku nool Muqdisho kaliya Buntland iyo meelaha kale oo sheegataana inta ku nool adaan su'aashka sugaya daahir ma sha Allah si qurux badan oo hadashay